kulanti wacan daawaday waa barteena YouTube-ka ee halbeega wararka qodobada wararka ee aanu xilligan idiin hayno waxaa kamid ah xog cusub oo ka soo korortay ganacsatada Soomaaliyeed ee lacagaha siiya ururka Al-Shabaab. qaar kamid ah ganacsatadan ayaa hadlay iyaga oo sheegay arrin xasaasi ah. qaarkood oo hadlay ayaa waxa ay sheegayaan in lacagaha canshuurta oo Al-Shabaab ka qaadan ay ku bixiyaan xafiisyo ku yaala agagaarka Villa Soomaaliya. xogtan xasaasiga ah iyo warbixin gaar ah ayaanu kula wadaagaynaa. haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir boggeena Facebook ee Tixraac wararka oo follow dheh adigoo muuqaalkan like saaraya una share gareynaya saaxiibada si uu dad badan u gaaro. mahadsanid. waa hagaag daawada ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno qaar kamid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen arrin ku aadan canshuuraha ay siiyaan ururka Al-Shabaab. qaar kamid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in aysan waxba iska bedelin lacagihii canshuurta ahaa oo Al-Shabaab ka qaadi jirtay ganacsatada xilli ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya soo saartay go'aano mamnuucaya bixinta lacagaha Al-Shabaab ay siiyaan ganacsatada xoolaha qaarkood oo la hadlay idaacadda VOA-da qaybteeda Soomaalida la hadasha ayaa la wadaagay dukumiintiyo muujinaya in lacagihii Al-Shabaab ay sidooda uga qaadaan maadaama aysan weli jirin qorshe dhab ah oo ay dowladda Soomaaliya ku wajahayso arrinkan. ganacsatada qaarkood oo la hadlay VOA-da ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in xafiisyo ku yaala Muqdisho gudaheeda oo qaarkood ku yaala meelo u dhow xarunta madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya ay Al-Shabaab lacagta uga qaadaan. lacagihii nagala qaadi jiray waxba iskama aysan bedelin tan iyo markii dowladda ay sheegtay in la joojinayo lacagaha la siiyo Al-Shabaab. waxaa dhibaato aan kala kulannaa isbaaro u taala Al-Shabaab deegaanka Boqda ee gobolka Hiiraan. haddii aan warqad ka wadan dalladda dhoofinta xoolaha kama gudbi karno isbaaradaas oo 40 kiiloomitir u jirta magaalada Buulaburda, ayuu yiri ganacsade codkiisa iyo xogtiisa ay qariyeen idaacadda VOA-da. neefkii waxay Al-Shabaab ka qaadaan lacag $10 ah halka dalladda xoolaha ay ka qaado $4, taasi oo ku wada qoran waraaqda dalladda ay bixiso. waxaa intaas dheer lacagaha zakada ah oo ay Al-Shabaab sanadkiiba $25 qaadaan. sidoo kale ganacsadahan la hadlay VOA-da ayaa dalladda ku eedeeyay in ay Al-Shabaab ku wargeliyaan haddii aysan ganacsatadu bixinin lacagahaas, inkastoo arrintaasi uu beeniyay mas'uul ka tirsan dalladda oo ay la xiriirtay VOA-da. wax canshuur ah oo aan Al-Shabaab u aruurino ma jirto. dalladdu waxa ay ka diiwaan gashan tahay rugta ganacsiga oo waxaa sharci ka haysanaa wasaaradda xoolaha iyo wasaaradda ganacsiga. waa waxba kama jiraan waxaasi oo canshuur aan nimankaas u aruurino ma jirto, ayuu yiri gudoomiyaha dalladda dhoofinta xoolaha. arrintan ayaa waxa ay sii xoojinaysaa walaaca laga qabo in Al-Shabaab ay shatiyo kala duwan u adeegsato qaadista canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. sidoo kale waxa ay ku soo aadaysaa arrinkan xilli dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay weli wado dadaallo ay ku doonayso inay ku joojiso ama ugu yaraan ay ku dhinto dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa goor hore waxa ay tilmaantay lacagaha laga qaado ganacsatada mid baad ah oo dhibaato loogu geysto shacabka Soomaaliyeed, iyadoo uu ku hanjabtay inay sharciga horgeyn doonto cid walba oo ay ku cadaato inay lacaga siiyaan ama ay fududeeyaan lacagaha ay helaan ururka Al-Shabaab. ururka Al-Shabaab ayaa dagaal adag kula jira dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada taageera, waxaana ay lacaga badan ka qaadaan sida dhowr jeer hore la cadeeyay ganacsatada Soomaaliyeed, iyagoo sidoo kale hela xogaha ganacsatada iyo sidoo kale badeecadaha u raran qaarkood, kuwaasi oo la sheegay in xilliyada qaar ay xogta helaan maraakiibta u raran ganacsatada oo aan xitaa soo gaarin dekedda magaalada Muqdisho. warbixintan ay baahisay idaacadda VOA-da iyo xogaha ay ka heshay qaar kamid ah ganacsatada xoolaha ayaa waxay noqonaysaa utun cusub oo ku taagan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan hay'adaha sirdoonka, kuwaasi oo laga doonayo inay soo cadeeyaan sida ay suuragal ku tahay in dalladda xooluhu ay lacag u aruuriyaan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo canshuur ahaan looga qaado ganacsatada xoolaha dhoofiya. heshiis gaar ah oo ay gaareen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. muxuu yahay heshiiskan? halkee ayuuse ka dhacay? maxaa la isku afgartay? maxayse ka heshiiyeen labadan mas'uul? maxay ahayd tabashada ugu weyn oo ay maamulka Jubbaland ka qabeen qodobkan muhiimka ah oo ay mas'uuliyiintu ka heshiiyeen? madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la soo warinayaa inay si hoose uga heshiiyeen qadiyad muddo badan soo jirtay, taasi oo ahayd mid ka dhan ah ciidanka xoogga dalka qaybta ka howlgasha deegaanada Jubbaland. sida ay muujinayaan warbixino la helaya qaarkood, heshiiskan ayaa waxa uu yahay mid lagu gaaray daaha gadaashiisa oo ma ahan mid si public ah ama bulshada horteeda loo soo bandhigay, waxaana uu ku saabsan yahay hogaanka taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo fadhigoodu yahay deegaanada maamulka Jubbaland.
maamulka Jubbaland ayaa muddo dheer waxa uu ka biyadiidanaa qaabka loo wajahayo xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 43 ee deegaanada Jubbaland iyadoo uusan jirin wax heshiis ah oo u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland ee aan dhicin Axmed Madoobe ayaa waxa ay doodiisa ugu badan ahayd in laga talageliyo qofka loo soo magacaabayo taliska qaybta 43 hubka ay helayaan ciidamada qaybta howlgallada ay fulinayaan askarta la qorayo iyo waliba mushaarka ay helayaan. heshiiska ay gaareen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha Jubbaland oo aanan faahfaahin rasmi ah ilaa iminka laga helin ayaa waxa ka dhashay in markii ugu horeysay muddo 4 sano gudaheed ah uu Kismaayo gaaro taliyaha qaybta 43 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Bogmadow. generaalkan ayaa sanadka markuu ahaa 2019 waxaa xilkaasi u magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka soo celiyay hoggaanka maamulka Jubbaland kuwaas oo sheegay inay sarraali ka ahayn magacaabistiisa ayaa waxay ku soo aaday xilli madmadow iyo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiray maamulka Jubbaland iyo dowladii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay. tabashada ugu weyn oo ay nidaamka Farmaajo ka qabeen maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ahaa in ay si gaar ah u beegsadeen madaxdii xilliga joogay isla markaana ay doonayeen in hoggaanka ay ka tuuraan Axmed Madoobe. warbixinada la helaya qaarkood ayaa waxa ay muujinayaan in maamulkii madaxweyne Farmaajo uu dowladaha Itoobiya iyo Kenya kala hadlay qadiyada ku aadan in Axmed Madoobe meesha laga saaro balse waxa arrinkaasi weyn uga hortimid xukuumadda Nairobi taasi oo ahayd qodobka ugu weyn oo isku qabteen nidaamkii Farmaajo iyo kii Uhuru Kenyatta. Generaal Bogmadow ayaa iminka waxa uu bilaabay kulamo gaar ah iyo kormeer uu ku sameynayo xeryaha ciidamada xoogga dalka ee ku yaala deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku teedsan. xeryaha uu booqday Generaal Bogmadow ayaa waxaa jooga askar tiro yar waxaana halkaas aan oolin gabi ahaanba saanad ciidan oo aad u tiro badan. heshiiskan cusub ee u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wadanka uu ku jiro xaalad dagaal isla markaana deegaanada qaarkood uu ka bilowday dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab kaas oo iska gaashanayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo abaabulay. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhowr jeer hore madaxdooda waxa ay sheegeen inay bilaabayaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxaana arrintan ay noqon kartaa mid fududeyn karta inay dhaqaaqaan ciidamada Jubbaland kuwa deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka oo isgarabsanaya isla markaana guluf ka dhan ah Al-Shabaab ka bilaaba deegaanada maamulka Jubbaland.